شهرا عظم من شهري بصنيع الخير وبالبر يا شهرا عظم من شهري بصنيع الخير وبالبر تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري فالله الخالق فضلها وبرحمته قد جملها فالله الخالق فضلها وبرحمته قد جملها وبمنته قد كملها هي خير من 1000 شهر نبي الله يوسف عليه السلام ربنا يرى كل أوصل هاي بالجوع وقريب حالته أتكات الله تبارك وتعالى فرج بوضحيه عد أصوته يا نوشة جوع وشهد شاهد من أهلها هؤلاء تذكر نتكمل أمر خاطف وعيون ويلك قميصكي سفيري أوليه ورنيه وقري قلي وركساب أهشو قميص كفيري حدو قلال كد اللعسي هينا وبين تيرو يدا هاتساني سي يصور وكعره حدي قميصكو حقه هورا كد اللعسي هينا إساقا هورا الأهايو إريانا هي أدو قميص كفيري قميصكي هدو فيري وقميصكي حقا دبو كد اللعسي وركو صوما عد markaasuu iyadii ku jeedsaday naadaalimad baa tahay oo waad gaftay oo khalad baad gashay toobadkeed war yuusuf oo raalli aho sabeen baa ku xidhan xaal qaado raalli aho muxuu go'aanka ku gaaray amaara calaamad waay calaamaduhu marbay wax walba ka xoog badan yihiin qaadiga wax garanayana waa qaadiga sidiisaba amaaraadka iyo qaraa'inta soo saarta فقهاء السلف كسمة شريح القاضي رجع وحي جرنشين الأقوال تفقه ماشي كجارين لبعض الروح مركز سوء استعجانا كرت أي جد بسريان هراي وكبرنا تقريبا الفقه كفاهم كسوة كذي وحي شيء صدح دمرة قصنا أقول رجبية وقت قاعد مالي صدح دمرة واحد إلى قضاء المسلمين تمين كمية شريح الأول مالي أي سوء استعجان صدح دمرة وحي شيء قليل saddexdii dumarka gaftoodu markay gudbisteen oo meeshii ka tageen ayuu ninkii qaadiga wuxuu yiri saddexda dumarka midina waa gabadh aan wali la guursanin midina waa gabadh nin soo martay midina uur bay leedahay amala baaray wali ma wasaasu hadii arintii la fiiri waa sidiiba midina waa gabadh midina waa gabadh midina uur bay leedahay uur muqdar ma ورسات كو غراتي بالي ما يوا غرتي ورسات كو غراتي gabadhu wuxuu markay garta taagnay way foortay buu islaanta garoobkaana ay dhaxay ugu fiiqaysay buu ilma maqsanuu haweenta uur kalena wuxuu yiri maraday kor isaga hayso saasay marada u haysay saddexda wasaasa ku gartay يعني والنظرة دقيقة فراسة عالية هنا علمي مركز قضايا ينقرصوكو سيدا هذا معها واحد اسكفضه ونوال بأنتو اسكفرونه أو مير اسكفرته أو اسكهل أو اسكحكو الكرماء مثلا سهلا معها سيدا سدراد يبقى واحد الله هاي ووركا كوغر وقبينيه قرصورك علمي قضايا خاصة مركو شرعاء إسلام مثلا وذلك هاي قانون إسلامي شرعاء إسلام بان أمضى كل معمولة وإن التحدر فربنا قانته إيه كذي ضد كذي آتها أقول كذي لا ده يعني وحنا قانته شد كذي قانون كذي مريسوي هذا المرين كريم نار هجلي عذاب هجلي ومده الرور دين كذا مقاله كذا بيد كذا عرض كذا خطر هجلي أظن خطر هجلي سؤالها أنت لا بقول كذا مركوح اسكوزي انت خصيصا موضوع المصور نحكي اليوم هو الخصيص لكن مهم يسوق الدكتور بكره من سؤالها هو اليوم شيخ الحكمة يصور وقت مقابل المدرك كان يقول سألتك وقلنا هي شيخ لك علماء هي مهارك الحين إنه قطرت سوى الدول اللي مبدأ الدارية
badbaadiyo caamo u tartamaysa xukunkaas falyatafadal mashkuur. بسم الله الرحمن الرحيم علمي waxay yiraahdaan hal mar baad dalban kartaa ama codsan kartaa waa marka cid kale isu taagta oo xilka qaban karta oo mas'uuliyadda isu taagi karta inay jirin adiga mooyee oo cid kale dilaayana markaati kaco mas'uuliyadda maanta heelan uma qaban karaan marka waa dalban kartaa waa la raadin kartaa waxay u daliishadaan nabiyullaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markuu boqorka ku yidhi ijcalnii calaa khazaa'ini alardi innii xafiidun caliim khasnadaha dhulka waxaa laga wadaa qaybta dhaqaalaha maamulkeeda ii dhiib buu yidhi nebi yuusuf laba arrimood buu ku cileeyay wuxuu yidhi xafiid baan ahay aamin ah aqoonna waan leeyahay cilmina waan leeyahay ammaanana waan leeyahay sidaas daraaddeed hawshan hala ii dhiibo nebi yuusuf maalinkaa wax ku dhaamo ma jirin haddii marka ficlan aadan adigu isa siinin laakiin lagu garto ummaddu kuu garato in aad tahay ninkii maanta mas-uuliyadda isu taagi lahaa ummadduna ku tidhaahda xilka qabo adigii inaad raadiso marka way kuu bannaanta laakiin waxaa ka horraysa inayna masaladu noqonin anaa raba anaana isu xukumaya anaana raadinaya weliba saa noqonin adigiibaa raba adigiibaana qaadli isu ah oo isu xukumay adig keligaa uun meesha inaad maanta geli karto adigii un baana fulin oo raadinaya lama rabo waa inay jirto jiho kale xaaladdaa iyadaa way cilmuhu soo istitnoodaan oo yidhaahdaan way suroobi kartaa inaad dalbato ama haddaad heli karto cid kaloo kaaga habboon ama aad heli karto cid kaloo qaban karta ama ayna laasimba kugu noqonin adiga shakhsiyan inaad ka warwareegto xilka ood ka cararto baa maslaxadaada ku jirtaa maslaxada ummadduna waxay ku jirtaa ninka xilka ka cararaya in lala raadsado ee ninka raadinaya aan loo dhiibin sida xadiiskii nabiga aan kusoo marnay sal alay wasalam wabillahi towfiiq سؤالكم حوالي الحين شيخ مكان أركي تفرارق علماء نقص وزمانك هذا يكجر لما طلع هكا المرس وستنظر هكا المرس ديتي لما في كل الشيخ محاولة لك لدوات بسم الله الرحمن الرحيم الزمن كان كتشر له طبعا زمن فتنة وزمن فرقة اسخلاف يبربر حتى قاري هير أن السوران كريم زمن كبير زمن الفتنة يهي شك كما جرد زمن الفتنة هنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثتي سأوقها الله ضدك والله ضد واقع عاص مركسن وحون كفضودين كرا وحون كقبل كرا شر كفضودين كرا وحون مصلحة السوكر من كرا أسجد دينتيسي أمة بدقلية روح النوع عسوكلا إنه أمد كل حجره ووحو صحي كرا الصحو ووحو عقل عليه وشرك يريه ووحو قبل كرا قبطان اللو باهيه شرط وإنه دينتيسي أمة بدقلية وحو إنه قبل كرا عيوتها حديث الله كي وحبا ضمن أنسان قبل كرا أسجد فيه سنة الصبق أيوه النبي صلى الله عليه وسلم مركزه كان وحا وجدي انه استغفر قالوا او دليل سرعنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحه مركز ارغتو dadka balankoodii iyo amaanaadkoodii oo isdhex galay dadkii oo iskhilaafay sida farahaas oo kale saa isu jiiray markaad aragto nabiga sallallahu alayhi wasallam gurigaaga laazim arabkaaga hayso arrimaha caamka iyo arrimaha guud isaga tag danahaaga khaaska ku mashquul إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه فعليك بخويصة نفسك واترك أمر العام ما تكره أن تذكر الأمور بطيل لكم ما يدرع سيف ومن شغلات أبوجه مركز أركته بخيله لا أطيع سيف مركز أركته نور رأي بسنة أمي هي أنا أقول بس أحسن هو لقى علم الدنيا أنا كسحسن
waa lagaa da'weeyey anaa ka saxsan waa lagaa waayo aragsanyay anaa ka saxsan waa lagaa dalayay anaa ka saxsan nin walba tiisu la qumantaa nabigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam arrimahaaga khaaskaa ku mashquul arrimaha caamkaana isaga tag dantaada ku mashquul cibaadadaada taacadaada ilmahaaga ganacsigaaga adduunyadaada iyo aakhiradaada wixii aada hubto oo diinana qaado wixii shaki kaa galana isaga tag taladii nabigeenna wataa salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadday intaa ku anfici weydana mujtamaca intaad isaga dhex baxdo duurka aad intaa haddaad ku badbaadi weydo nebigu sal lla alay wasalam waa miduu tilmaamay waxaa dhow uu yidhi inay xoolaha muslimka ka ugu khayr badan inuu noqdo xayn adhi ah oo uu ruuxu baadiyaha ku haysto meelaha roobku ka do-o iyo buuraha korkooda uu ku ilaashanayo diintiisana uu fitanka kala cararayo xoolaha inay kuwaasi ugu khayr badnaadaan baa dhow buu nabi sal lla alay slam waa markay fitanku dhacaan haddaadan marka waxba ka bedeli karin diintaadana u baqayso fitnoobayso ka carar majaalista caamkaa ka carar golayaasha ha imaanin danahaaga qabso arrin soomaaliyeed iyo dal soomaaliyeed iyo muxuu ahay dowlad soomaaliyeed faraha kala bax danayso haddaad ummaddaa dhankeeda wuxuun ka badbaadin kartana adiguna aada fayoobaan kartana ummadda waxaad u qaban karta u qabo hada bilahi tawfiiq إن شاء الله نحكي لبس ولد يقول قصاصا سواش الحوار وحي كبر الصومالية لا يوحنا يقول الصومالية وولي المسلمين والسنية سواش وحي يقول كراويل صوماليا وولي المسلمة لكن شيعة فضلا مهم جواب سببتها وحن رضاء إن أنه سبب هقول سنة شبابته بالاختصار طبعا هقول سنن شيعة وضد فوق وحق جرا قار كم إذا وقالوا مسكوه فصيحة قال لي وضوضا قار كم إذا قال لي ما مقارسيسنا لكن السنة هي الطريق السحد أبي أبي فوق ينو فرقوين كم نوصل marka inaad firqal muusan u noqoto xaas ama gaal xaas u noqoto labada mid bay noqonay marka ha guursanin rag alla badiye haddaad sunniye tahay mid sunniyeed heliyo ama isagoo kale ama ka fiican xag waxaad ku dooratay sunniga raadso maadaama aad sunniye tahay shiica ha guursanin shiicadu noocuu doonay ha ka noqon wabillahi tawfiiq هذا بدل أوجد يرى لما تنشر الحسوق والطيب لما تنجيب ما الشيخ ودن كان في النار ضرورة كنا وهي وحنش على من حاصل وديني أخلاقه أنا وإلهي ذاتي وجعل إلهي يأتي لك تسكيك بحيث لكن والدك يريدي سبب تقول يريدي لأن وحوي لك سيحاسب لي هاي محاسب يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم mid horta waxaan leeyahay waalidka midna gabadhaan leeyahay mid horta gabadhaan leeyahay oo inay ninaan xaas lahayn nin xaas leh inay guursato inay ku qanacdo si ay isu ilaaliso diinteeda u ilaashato waa arrin runtii aada u qiimo badan waay muhiimaddu ma aha xaas buu leeyahay iyo xaas male ma aha laakiin ruuxu beddelkuu xumaan ku dhici lahaa inuu dhowrsoonaado sababtuu ku dhowrsoonaan lahaana uu guursado cidda uu guursanayana intaad xumaan ku dhici lahayd yacni waxa weeyaan guurso waa masale muhim ah waana kula talinayaa inaysan ka daalayn qodobka labaad ee gabadha leeyahay waxa weeye waalidkaa ateec waalidkaa ateeca shareecadu khiyaar waxay ku siinaysaa inaad nin reer la guursato iyo ninaan reer lahayn inaad guursato labaduba waa khiyaar masaa-isha khiyaarku kaaga furan yahayna waalidku hadduu amarku siiyo amarkiisaa laasimaya hadduu ku yidhaahdo jooji waad joojin haddiiba reerkii dhaqnaayee dhisnaa ee isqabay waalidku fur hadduu yidhaahdo la furahayo reer aan weliba la guursanin ka waran hadduu ku yidhahdo ha guursanin
iska dhaaf reer buu leeyahay xataa midaan reer lahayn hadday ku yidhaahdaan nalama qumana inaad guursato ha guursanin mid adiga waalidka aad isku waafaqsantiin raadi insha allahu tacaala taa horta gabadhaan dhihi lahaa iyo dhallinyarada guurka rabta masalada waalidkana fududaysi male masalada waalidku masala fududaysi male allahuma mid alxaalo hadday gabadhu ka baqayso zina ka baqayso oo inay faaxisho ku dhacda ay ka baqayso guur kalena markaa aynan haynin ninkaana ehelkeedu u diido ayagoo diidan bay markaa guursanaysa leesh lianna markaa waalidka diidadoodu waa macsiyo min aan reer lahayn ha guursanin zinana ku dhac waa macsiyo sooma markaasoo kale lagu ateeci maayo oo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq lagu ateeci maayo laakiin markaan ka hadlayno aan leenahay waalidka ateec waa mar ay gabadhu heli karto opshino ama khiyaaraad kala gedisan ama ma ahe ay adkaysan karto zina ayna isaga baqaynin mararkaasoo kale waa inuu waalidka ateecdo cid ay isku waafaqsan yihiin ay isla raadiyaan waalidkana hal kelimaan leeyahayo ilaahay ha uga baqaan caruurtooda gabdhaha ilaahay ha uga baqaan mas-uuliyad iyo xil maalinta qiyaamo inayna weydiin doonaba gabadhaadiioo guur u muhotay nin nadiifana guursanaysa dumar buu leeyahay oo maadaa lagula qabaa ayadii hadday raalli ku tahay hooyay maadaa lagula qabaa haddaad se aabba tahay oo adiguba dumar badan inaad guursataad rabtaa ama waad qabtaay maxaad gabadhaada ugu diiday oo waa midda saddexaadee gabadh bii-adan joogta oo mujtamacan ku nool oo dhallinyaro ah oo guur u muuqatay markaad maanta tidhaahda ma guursanaysidoo naag buu qabaa berri wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda soo ilahay hortiisa ka baqi maysa tabaaraka wa tacaala ma aha bii-o aynu wax kala doordooran karna ma aha waa bii-o khatar ah oo halis ah oo loo baahan yahay jaaliska ugu horeeya oo ilmuhu uu guur helo in loogu kaalmeeyo hadduu rag yahay iyo dumar yahay jaaliska ugu horeeya uu helo in loogu kaalmeeyo bii-a ina qasbaysaynu joognaa ma aha bii-a inuu wax kala doordooran karno khiyaaraad iyo opshino badan aan haysanaba wabillahi tawfiiq qofka muslimka misdiinka haddii dhibaato ay ka gabato بسم الله الرحمن الرحيم روح مسلم كأه إنه سنستيل كريم وأرين وحنوم لنا علمي عامة الأوجيه دبك إلهي كوك يعني وحال رواينات كجبح الصبر أدرو ما يصير إلهي قضيه سي قدر كيس وحن إلهي وقرشي السجع قدر السجع معمولية si walba yeelana kama baxsadeen musiibadan iskama reebi karo ma baajin karo ilaahay baa ii qorsheeyay maslaxadu inay ugu jirtana ilaahay baa garan tabaaraka wa tacaala marka sabir ama inaad isdisho haddaad isdisho oo sabab aad leedahay isku disho ahlu naar baa tahay naftu intay kaa dhacaysaan naar kaa xigta naftu intay kaa dhacayso baa naar kaa xigta nabigeenana waxaa ka sugan xadiidka saxiix muslim iyo keyrkii ku yaalay ruuxii naftiisa dilaa naarta dhexdeeduu ku jiraa wuu ku waarayaa khaalidan mukhalladan fiiha wuu ku waarayaa waa lagu waarin weligii naarta gudaheedana wuxuu isku ciqaabayaa oo lagu ciqaabayaa wuxuu isku dilay hadduu mindi isku dilay mindidiibuu naarta isagoo ku jiray isgelgelinayaa hadduu sun isku dilay suntii baa naarta dhexeeda lagu cabsiinayaa ma dhammaanayo hadduu meel iska tuuray naarta dhexeeduu qow laga soo tuuriyoo kolba la soo celinoo la tuuri shayguu isku dilay baa lagu ciqaabayaa naartana waa ku waarayaa xadiiska nabiga saasaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxayna culimmadu ku fasiraan waqti dheer buu naarta ku jiri doonaa nabigeennana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dadka isdilay inuu ku tukado waa diiday waa lagu tukan karaa laakiin dadka magaca leh culimmada muuqato oo kale si dadku ay arrintan ay uga fogaadaan waxaa fiican inay salaadiisa ka tagaan dadweynaha kale ku tukadaan laakiin ninka culimmada muuqdoo kaleeto ee ummaddu fiirsanayso
inuu yidhaahdo muxuu ahay war nin isdilay ku tukan maayo anugu oo la yidhaahdo war culimadii hebel waa ka tagtay salaadiisii oo maxaa dhacay inuu isdilay darsigaa markaa ku jira ama in salaad la-aan la aasamo oho waa lagu tukano muslimiinta kale ku tukanaya qubuurta muslimiinta lagu aasaya laakiin shaki wuxuusan ku jirin waa dembi aad u weyn ruuxa muslimka ana marxalo gaadhsiin karta inuu naftiisa dilo wax sahlan maaha waa ruux iimaankiisu eber yahay laana ruux hadduu iimaan leeyahay dhibka soo gaadha iimaankiisaa qancinaya maxaa kaa maqan maxaa rabtaa dhibba ay haya inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kuwa kaasii daran baa jira bal hoostaada fiiri haddaad gaajaysan tahay kuwa gaajaysan baa jira kaa daran haddaad ooman tahay kuwa kaa daran haddaad hoyla-aan tahay kuwa kaa daran bal fiiri khalqigan kaa hooseeya waa qanci alxamdulilah raalli ku noqo wix ilaahay kuu qorsheeyey kuu qadaray kun qanacsanow ama inaad isdisho stress ku galo waalato madaxaagu yareero balaayo isku furto waa iimaan la-aan waay iimaankoo daciifay baa keena hada billahi tawfiiq sal allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wala alihi wasaxbi wasalam يا شهرا عظم من شهري بصنيع الخير وبالبر يا شهرا عظم من شهري بصنيع الخير وبالبر تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري فالله الخالق فضلها وبرحمته قد جملها فالله الخالق فضلها وبرحمته قد جملها وبمنته قد كملها هي خير من ألف شهر يا شهرا عظم من شهري بصنيع الخير وبالبر يا شهرا عظم من شهري بصنيع الخير وبالبر تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري فملائكة الله تنزل والروح فيها تتنزل فملائكة الله تنزل والروح فيها تتنزل أبواب الرحمة لا تقفل تبقى حتى مطلع فجري يا شهرا عظم من شهري بصنيع الخير وبالبر يا شهرا عظم من شهري بصنيع الخير وبالبر تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري فلنكثر فيها التكبير والتهليل والتذكير فلنكثر فيها التكبير والتهليل والتذكير بإله بر وكبير ولنتلو آيات الذكر يا شهرا عظم من شهري بصنيع الخير وبالبر يا شهرا عظم من شهري بصنيع الخير وبالبر تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري تزهو ما بين لياليه ألقا غرة ليلة قدري لنسبح باسم الرحمن الملك الصمد الديان لنسبح باسم الرحمن الملك الصمد الديان في غرر ليالي رمضان نلهج بالحمد وبالشكر